hadda haddii la isku dayo dhalinyaradii meesha isku madadaalinaysa haddii la cuuryaamiyo waxaa imaan doonta qalqalgelin amni. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo walaalkiin maxamed xasan. waxaan rajeynayaa inay ahayd maalintiina maalin qurux badan waqti fiicanna aad kusoo qaadateen. haddii aad cusub tahay waxaan si naxariis la kaaga codsanayaa inaad subscribe dhahdo channelkayga. 12,000 wax yar ayaa nooga harsan gacantaan wada saarno. inta subscribe la'aanta daawata channelkayga waxaan ka codsanayaa in caawa laga bilaabo ay subscribe la'aan daawanin subscribe-na ay dhahaan. hadduu videogan kusoo gaarin waxaa sidoo kale ka codsanaya videoga like saarto si dad badan uu videogan u gaaro si aan u helno dad sidaadoo kale u wanaagsan. waadna ku mahadsantihiin mar walba daawashada videodan soo dhigo. sida caadada iyo dhaqanka ahaydna kusoo dhawaada muuqaal aan ku falanqeyn doono laba qodob oo maanta baraha bulshada aad loo hadalhaya ah. qodob waa qodob dowladda federaalka Soomaaliya oo hakin ama joojin ku sameynaysa aaladda la yiraahdo TikTok iyo challenge halis geliyay nafta Babaji oo wada taqaanaan. labada qodob ayaan ku falanqeyn doonaa. markii hore waxaan ku hormareynaa aaladda TikTok oo dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka arinta u qaabilsan warqad uu soo saaray ku sheegay in gabi ahaanba la joojin doono 24ka bishan aan ku jirno aaladda la yiraahdo TikTok. okay, marka hore waxaan rabaa in ay ila aragtaan dadkii ka falceliyay hadalka dowladda federaalka soo baxay oo ugu horeeyo madaxweynaha iskiis isku magacaabay Bilaal Bulshaawi. ayaan rabaa marka hore in ay ila aragtaan. hadda haddii la isku dayo dhalinyaradii meesha isku madadaalinaysa haddii la cuuryaamiyo waxaa imaan doonta qalqalgelin amni. waxaa imaan doonta in dhalinyarada niyad ay u yeeshaan heer ay ku fakaraan inay dowladdii la dagaalamaan oo hadda dalka xoreyn baa ka socota. haddii la isku dayo in wax la cuuryaamintaas inay dowladdu ku noqonaysaan hubaa in laga digtoonaado laga fiirsado. Bilaal Bulshaawi oo hadal jeedintiisa ay ku dhehneed in dowladda federaalka Soomaaliya haddii ay joojiso aaladan dhalinyarada TikTok ay isticmaasho in khatar amni ay soo wajihi karto caasimadda Muqdisho kadib dhalinyaro badan oo meesha oo ku mashquulsaneed qaarna wax ka helayay ee hadhoodii dowladda federaalka inay la dagaalaan ay noqon karto. sidoo kale waxaa ka hadlay wiil la yiraahdo Mandirshe wuxuuna madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka codsaday in aaladan loo daayo maadaama uu sheegay in xoogaa masruuf uu ka heli jiray. mudane madaxweyne waxaan ka codsaynaa aaladan TikTok inaan naga xirin. fiidiyowan ii sheer gareeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ha lee gaarsiiyo. madaxweyne dhalinyarta waxaan nahay ku tiirsan TikTok waxaan ka helnaa TikTokan masruufaad aan hore u haysan jirin. mudane madaxweyne kirada guriga xataa iskama dhiibi karno. madaxweyne waxaan ka codsaynaa inaadan naga xirin aaladan. madaxweyne ra'iisul wasaare aad ma ka run tahay ra'iisul wasaare Xamsi waxaan ka codsaynaa inaadan TikTok naga xirin. anaga meelan ku tiirsanaha ma lahan, meel aan ka shaqeeyayna ma lahan, meel aan aadayna ma lahan. albaab walba naga soo xirmay. isha kaliya aan fiirsayna waxay ahayd aaladan TikTok. dadkaas Mareykan jooga waxayna sii jireen giftiyaad habeenkii leefa iska gali jirnay. hadda xaggee aadayna xaggee wax ka keenayna kirada guriga xataa iskama bixi karno. madaxweyne wiilkan oo isku dayay inuu isqiirigeliyo dowladdan uu ka dhaadhiciyay in aaladan TikTok la fasaxo oo ay kasii shaqeyso caasimadda Muqdisho wuxuu sheegay in kirada guriga xitaa ay iska bixi karin halka hadda ay fiirsadaan ay tahay TikTok uuna ku tashto jeeb dad Soomaaliyeed oo ku nool dalka Mareykanka oo xoogaa giftiyaas iyo kadib markii ay isku balansadaan asiga iyo qolo kale si ay game wada ciyaaraan. fikiradan oo Bilaal Bulshaawi iyo wiilkan ay qabaan waxaa sidoo kale fikirka ka duwan qaba Ali Kay oo wada taqaanaan oo kamid ah dhalinyarada sidoo kale aadka looga yaqaan baraha bulshada gaar ahaan TikTok. wuu ka duwan yahay fikirka Mandirshe iyo fikirka madaxweynaha iskiis isku magacaabay Bilaal Bulshaawi. mid ka duwan ayuu qabaa balna la arka sigana. arba dowladda go'aanka ay soo saartay inaan laba mid aan karo. horta waxa midda koowaad oo ah galabta inay xirtaan 24 daqiiqo TikTok galabta la xiro haloo kala tago. waraa TikTok dadka jaahiliinta iyo dadka wax bartoo samee hal wada saariin
waraa ani ahaan meeqa sana wax soo baranaya meeqa sana lagu soo tiiri tacbeela waxbarashada inaan ku shaqaysaa rabaa inaan bangiyada ka shaqeeyaa rabaa inaan wasaaradaha ka shaqeeyaa rabaa waa insaadii kan ma fahanta balwad waa teeda kale farta qoraalkaaga dhumi rabto buugii qalin aan soo qaato waxaan ku qoro goor ugu dambaysa ma xasuustay biliis galabtaa la xiro TikTok war even aniga had graphic designer-na waa computer maanta hadaan soo qaato waxaa raadin jira website oo wax ka faa'iido hadda YouTube waa Google la ingeliyo Chrome la ingeliyo معقول مياه ورا قلبت على حيرة تيك توك نيو دولة على كت سنة قلبت تيك توك وكل وضع بعد الشيء اللي كل شيء استقف كوا برنا جاهل واي أف كوا برتا وش غير سرعة مع على كله sida arkayseen wiilkan wuxuu sheegay waxbarashadiisa inuu ku shaqeysan waayay una diiday TikTok in waxbarashadiisa iyo wixii lagu soo tiir tacabeelay muddada dheer in uu dib ugu shaqeysto uu u diiday balwad ahaan TikTok markuu ka dhigtay balwadiis wuxuuna sheegay dhalinyaro badan in TikTok ay ku habsaansan yihiin dowladuna wuxuu ka codsaday in weliba waqtiyada ugu soo horeeyay inay xiraan dadna dhibaato ay ku qabaan dadna faa'iido ay ku qabaan dunida xaaladeeda sidaa ah mid ka mid ah dadka bulshada oo asigana laga wareystay arrinta TikTok ayaa fikirkiisa ka dhiibtay sidoo kale wax ku dhacawaarag taamiyo gabdhihi quruxda badnaa dharkay dhigteen fiiri gabdhihi suuqaa ku arkaysaa sheekh hooyo duqa waxaa arkaya darad iyo gabdhada niikina wartee joognaa halkee ku noolna akhlaaqda ummadda mar hadday dhunto xaqiida ma jiro ninkan wuxuu sheegay gabdhihii Soomaaliyeed ee quruxda badnaa in baraha bulshada ay ku fasahaadsan yihiin gaar ahaan aaladan la yiraahdo TikTok wuxuuna sheegay xitaa hooyo iyo gabdheed oo niikinaysa in lagu arkay marka wuxuu sheegay ummadda haddii dhaqankeeda iyo karaamadeeda ay lunto caqiidana meesha ma jirto marka dadka aragteen waa la kala fikri duwan yahay dad waxay qabaan in aalada TikTok laga xiro magaalada Muqdisho dadna waxay qabaan inay sii jirto laakiin sida ogtihiin faa'iido iyo khasaaro ayaa baraha bulshada ay leeyihiin dad badan ayaa dhibaato ku haya dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka dhalinyaro badanna noloshood ayay bedeshay aaladan TikTok waxay ka helaan xayisiino waxay ka helaan giftiyo marka dadna noloshood ayay bedeshay dadna noloshood ayay kharibtay marka dowladda federaalka Soomaaliya go'aanka ay qaadatay ani ka fikir ahaan waxaan leeyahay in la xiro gabi ahaanba TikTok kadib markii uu fasaad TikTok markii laga reebo giftiga lacag kale lagama helo saa darteed qofkii shaqaysan kara talent uu ku hadla leh wax reaction bixin kara vlog duubi kara challenge samayn kara ha furto YouTube aaladan TikTokna dowladda waxaan ka codsanaa ani ahaan inay gabi ahaanba ay irdaha isugu laabto sidoo kale waxaan rabaa Baba J oo challenge naftiis khatar ku ah ama khatar geliyay uu soo bandhigay bal inay la aragtaan صاحبك عنده قلت له ما له وناكسن تعال وش بدور بنا وهي هي قلت مدح مكجرنا sida arkayseen waa Baba J orange lagu shubayo haddana naftiis khatar ku geliyay challenge-gan maalmahan Baba J wuxuu wadi barnaamij ay soo xujeyso tinta laga xiiray girka laga xiiray shaarbaha laga xiiray madaxa laga wax kasta laga xiiray ugu dambeynna in range uu isku bilbilo ayaa la gaarsiiyay marka video intaan ku soo gabagabeynaa tan iyo kulantideena dambe waa tii tacdo idinka codsanaya mar kale haddii aad cusub tahay inaad subscribe dhahdo si aan u gaarno 12,000 haddii aad hore ila joogtayna si video aan meel fog u gaaro like ta waa